Habeen wanaagsan daawadayaal sida u dhantiin meel kasta aad dunida ka joogtaan fadlan haddii tahay daawashada kugu horeysa aad channelka soo booqato waxaa si xushmad leh kaaga codsanaya inaad channelka subscribe saarto sidoo kale aad like saarto maadaama like-tu uu gaari karo dad badan adigna wax lacag ay kaa gadneen markastana aan u taaganahay codsidiina inaan kasoo jawaabno marka waxaa mar kale si xushmad leh kaaga codsanaya video markaad daawato inaad channelka subscribe saarto sidoo kale aad like saarto intaa kadib caawa waxaan rabaa inaan explanation ka baxsho barnaamijkan la yiraahdo team 1 result plus total 1 oo asxaab badan igu soo mishin gareeyay inaan kasoo hadlo hadba codsidiina waan kasoo jawaabi doonaa YouTube-kan wuxuu u furan yahay idinka codsidiina waxaad fahamsaneen inaan kasoo jawaabo waxaan rabaa marka inaan guda galo aan idinku fahamsiiyo waa maxay team 1 result plus total 1 oo aan ku sharxi doono kooba Italia cawd wada ciyaara Inter Milan iyo sidoo kale Atlanta marka sida u jeedaan horta barnaamijkan intuu ku jira sidiisa wuxuu ku jiraa meeshan la yiraahdo hoosaad u soconaysaa dabcan asxaabta way wada yaqaanaan dhamaantooda qaybtan ayuu ku jiraa marka regular time ka timaado qaybtan hoos ayuu ku jiraa marka team 1 waa Inter Milan oo loola jeedaa team 2 na waa Atlanta marka team 1 hadaad fahamto marka team 2 ma sharxi doono oo team 1 ayaa kulli isugu jiraan team 1 waxaad ku fahamto ayuu team 2 na ay qayb ka tahay waa isku mid marka team 1 ayaan sharxi doonaa marka idinkana waxaan idinka rabaa inaad fahamtaan markaan video daawataana like soo saara sidoo kalena waa fahmay iyo soo qora waa mahadsantiin marka Inter Milano waa home sida u jeedaan meeshan waxa ku qoran team 1 and total under 8.8 macnihiisu waxaa loola jeedaa team maxaa ku reedaa W1 aan iraade and 2 TU daas waxaa loola jeedaa under laga soo gaabshay ama wax ka yar macnaha loola jeedaa 1.5 minus yes 8.8 waxaa laga wadaa team 1 ayaa badinayso sidoo kale garoonkan waxaa ka soo baxayo 2 gool iyo ka yar minus waxaa laga wadaa haddii Inter Milano ay 1-0 ku badiso oo saas guusha ay ku dhamaato si fiican ii faham haddii Inter Milano ay badiso ay sidaasna guusha ku raac 1-0 ku badiso 8.8 qaadaysa laakiin haddii Inter Milano badis xataa uu garoonkane 2 gool uu ka soo baxdo macnaha loos ayaa loola jeedaa macnaha saas ay ula jeedaan marka team 1 and total under 1.5 waa team 1 badnayso garoonkana 2 gool ay ka yar ka soo baxayso okay iyada waa riski tan labaad waa team 1 ayaa badinayso andi qaybta labaad macnaha 1-2 ula jeedaya oo 5.5 ay ku qoran tahay waa team 1 badinayso andi TU waxaa laga wadaa sidoo kale tan oo meesha 2 gool ka tahay 3 gool laga dhigay si u fahma waxaan waa taxana waay team 1 badinayso garoonkana waxaa ka soo baxayo 3 gool iyo ka yar minus waxaa waa hadii 2 gool iyo eber ay ku dhamaato waa okay hal iyo hal hadii ku dhamaato waa okay laakiin maya hal hadii ku dhamaato taa waxaa waaye Inter Milan muhiimadu waa Inter Milan inay badiso garoonkana ay ka timaadaa 3 gool ay ka yar tusaale Inter Milan 1-0 hadii ku badiso waa okay 2-0 hadii ku badiso waa okay laakiin hadii 3 gool ay meeshan garoonkan ka timaado waa loo jeedaa 5.5 saaran tan saddexaad waxaa loola jeedaa Inter Milan badinayso garoonkana waxaa ka soo baxayo 3 gool fahma 3 gool ka yar 4 gool ka yar aan dhahay 4 gool ka yar waxaan ku dhahay Inter Milan badinayso waa tixaan sidaan kugu sheegay garoonkan waxaa ka soo baxayo 4 gool ka yar waxaa saaran 3.8 senti soo soco mid kale waxa waaye team 1 badinayso tan aad loo fahmo garoonkan waxaa ka soo baxayo 5 gool iyo ka yar minus waxaa laga wadaa team 1 badisay waxaa laga rabaa markaas garoonka inay ka soo baxdo 4-0 tusaale haddii ka timaad 3-1 ay ku badis Inter Milan 4 gool waa soo maaha laga wadaa
okay sii soco waxaa laga wadaa hadan waxaa lagu yiri team 1 badinayso garoonkana TUdaas waxaa waa ka yar waa total under way garoonkan waxaa ka imaanayso 6 gool 5.5 6 gool loola jeedaa 6 gool iyo ka yar $2.10 waa 2.1 waxaa loola jeedaa $2.10 marka taas waxay TU ahayd faham TUdaas waa total under laga wadaa okay tan marka ku xigto oo ah W1 and 2 TOdaas ay u jeedaan goolasha kooxda u dirsaysa saas u faham goolasha kooxdana u dirsaysa kooxda markaas home ka ahaa inay dhalisay la rabaa waxaa lagu yiri W1 badinayso waxayna ku badinay 2 gool ay ku badinay TUs waa ida u dirsatay waa 2 gool ay ku badisa laga rabaa waxaa saaran 2.52 senti sidoo kale waxaa lagu yiri meeshan W1 ayaa badinayso waxayna ku badinay 3 gool ay ku badinaysaa tuudaas waa ida u dirsatay macnaha ida goolasha loo dirsanaa tan kale ku sii xigto waxaa waaye W1 ayaa badinayso waxayna ku badinay way had waxbay kala bedeleen 4 gool ay ku badin ama 4 gool ay dhalinaysaa ay macnaha loola jeedaa waa 4.94 senti tan ida badinayso waxayna ku badinay 5 gool inay dhalisaa laga rabaa 5 gool inay dhalisaa laga rabaa waa $7.5 tan ida badinayso waxaan la rabaa inay dhaliso 6 gool inay kaga badisaa ay dhalisaa laga rabaa $16 saaran okay qaybtan kale maw waxaa u jeedaa 1x and 2 1.5 years waxaa loola jeedaa kooxdan Inter Milano Barejo si ay dhigayso ama way badinayaan Barejo galay garoonkana waxaa ka soo baxayo 2 gool iyo ka yar waxaa la rabaa tusaale haddii eber ku dhamaato ciyaarta wuuna tahay hadday 1-0 ay ku dhamaato Inter Milano wuuna tahay miimadu marka meeshan waxaa laga wadaa saas waa haddana waxaa lagu yiri 1x and 2 TUdaas total under way 2.5 years $2 iyo waxaa saabta waxaa laga wadaa Inter Milano Barejo ambadisa galay garoonkan waxaa ka soo baxayo 3 gool iyo ka yar okay haddana waxaa lagu yiri Inter Milano Barejo ambadisa galaysa tan way roon tahay aad u fiican tahay garoonkan waxaa ka soo baxayo 4 gool iyo ka yar waa suurtagal sidoo kaleeto waxaa lagu yiri Inter Milano Barejo ama badis ay galay garoonkan waxaa ka soo baxayo 5 gool iyo ka yar haddana waxaa lagu yiri Inter Milano Barejo ambadisa ay galay garoonkan waxaa ka soo baxayo 6 gool iyo ka yar haddana waxaa lagu yiri meeshan Inter Milano oo 1x ah Barejo ambadisa ay galaysaa waxayna dhalinaysaa 2 gool ay dhalinay tuudaas iyada loo dirinaa 2 gool ay dhalinaysaa 1.64 senti saaran haddana waxaa lagu yiri Inter Milano way badinay maya Barejo ambadisa ay galay 1x waxayna dhalinaysaa 3 gool ay dhalinaysaa haddana waxaa lagu yiri 1x Inter Milano waaye Barejo ambadisa ay galaysaa and 2 maxaa ku yiri 3.5 4 gool ay dhalinay tan waxaa lagu yiri 1x oo ah Inter Milano Barejo ambadisa ay galaysaa waxayna dhalinaysaa 5 gool 6.6 saaran haddana waxaa lagu yiri 1x Barejo ambadis and 2 waxayna dhalinaysaa 6 gool waxaa saaran $12 tan marka hoos u soo degno cagsigeeda waaye tan cagsigeeda waxaa laga wadaa meesha data soo dheena 8.8 garoonka wax ka yara imaanayo no macnaha waxa ma imaanayo waay macnaha Inter Milan badinayso garoonkana
intaas iyo ka badan imaanaa loola jeedaa inaa fahantiin aan rajeynaa inaa waqti idinka qaada ma rabo inaa aad u fahantaan basa muhiimadda meesha daa 8.8 la dhahayo Inter Milan badinayso garoonkan waxaa kasoo baxayo 2 gool iyo ka yar Inter Milano minus waxaa laga wadaa hadday badiso xataa 3 gool iyo 4 gool ee ka timaado win ataa laga wadaa macnaha haddii laga badiyana garoonkana intaas ka badan ka timaadane win aa tahay tan kale waxaa waaye W1 and 2 macnaha ma badinayso ama way kala badinayaan garoonkana 3 gool iyo ka badan ka soo baxayso dad way badinaysaa meeno waa laga badi karaa ma badinayso macnaha inayna badinin hadday baraaja gasho win aa tahay garoonkana 3 gool iyo ka yar hadday ka soo baxdo 4 gool ee ka soo baxdo iyadan win aa tahay tan iyadana waa la mid saasoo kale waaye waxaa laga wadaa W1 and 2 TUdaas 3.5 no macnaha ma badinayso sidoo kale garoonkana 4 gool iyo ka yar 4 gool iyo ka badan ka soo baxayso waa no macnaha waa fahmaysaan marka waqtiga inaan idinka qaado mar dhammaan saasoo kale waa ku dabaqaysaan qaybta hore daa fahantay qaybtan kalena no way marka guud ahaan ilaa meesha ugu dambayso hadda waxaa u jeedaan 1x and 2 meeno kooxdan Inter Milan bareej aan badisay galaysaa garoonkana 5 gool ay ku badinaysaa 12 doormo ma ku badisay no hal sinti saar marka waxa inta ku aragta noodada watanne marka dhammaan waxaa rajeynaa inaad fahamteen oo iisoo qori doontaan waa fahanay aad baa mahadsantihiin haddaad wax kale oo jeceshahay laga hadlayo fahamsaniin igu soo mishin garay insha Allah waa kaaga soo jawaabi doonaa aad baa mahadsantihiin saaxiibayaal fadlan video markaad daawataan waxaan si xushmad leh kaga codsanaa inaad like soo saarto waa mahadsantihiin